بسم الله الرحمن الرحيم سيد كويسان waxaa maanta magaaladan Nairobi booqasho rasmi ah ku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya Mudane Uhuru Kenyatta wax badan bay labada madaxweyne wada hadleen joint statement-igi soo baxayna waad dhageysateen baan malaynayaa marka waxa ugu muhiimsan yaan rabaa inaan idin sheego communique-ga maanta soo baxay wixii su'aalaha aad qabtaanna inaad weydiisaan maadaama xaafadeydii aan ka soo tagay hadda halkan aan joogno in media dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku shaqeeya aan iyagana markooda hadaan u kulano aan fursadaha siino oo media gudaha kaliya aan ku koobnaan hawshaas waxyaalaha lagu heshiiyay oo aadka muhiimka ugu ahaa waxa ugu weynaa in labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay xushmeeyaan madax banaanida iyo xuduudaha labada wadan oo aad garanaysaan inay maaragtay aad muhiim ugu tahay dawladda Soomaaliyeed waxa kaloo iyaduna aad muhiim u ahayd waxyaalaha la isku afgartay in aad loo qoto dheereeyo lana hagaajiyo xiriirka qotada dheer ee labada wadan ka dhaxeeya in Kenya Airways-na ay timaado ay falaadeedeedii ka bilowdo Muqdisho ay ku iman jirtay waxa jira in ganacsiga Soomaaliyeed ee kalluunka sidaad ogtihiin markii xiriirku xumaaday kalluun badan oo Soomaaliya laga keeni jiray wuu baaqday kalluunka magaalada Nairobi laga cunaana qaar badan oo kamid waxay ka yimaadaan China marka in kalluunka Soomaaliyeedna loo soo iib geeyo halka Nairobi Kenya la keeno jaadkiina in isagana la furo oo arrin iyaduna ahayd wax indhaha lagu hayay fiisaha saddex nooc way u qaybsamaa baasaboorka Soomaaligu mid waa diplomatic mid waa service midna waa ka caadiga oo dadka shacabka qaataan diplomatic in on arrival lagu qaato service sidoo kale isagana kadib markay 48 saacadood online lagu apply gareeyay isagana in lagu qaato on arrival dadka caadiga ahna in kadib marka ay online ku apply gareeyaan in ugu badnaan 10 maalmood uu qaato isaguna dadka Soomaaliyeed lagu dhibi jiray oo mararka qaar ay dhici jirtay in 4 ilaa 3 bilood uu socdo isagana sidaas loo soo afjaray oo la soo gaabiyay inta kalena kulli waxaad ka kulli qodobadaas ugu muhiimsanaa marka iskaashiga ganacsiga iyo ka dhaqaalaha iyo isku soo dhawaanshaha labada wadan iskaashiga amni iyo sirwadaaga iyo xog wadaaga labada wadan oo iyo qodob kale oo muhiim ah baan iloobay oo ah in xuduudada la furo sidoo ogtihiin xuduudka xiriirku galay darteed meel badan oo xuduudka kamid ah way xirnaayeen marka in xuduudkana si buuxda loo furo iskaashiga labada wadanna intan laga sii qoto dheereeyo insha Allah yaa la isku afgartay marka idinku raaliyo su'aalaha qodobkana sababta loogu soo daray wataa inaanay Kenya mar kale ku khaldamin oo ay xushmayso territorial integrity-ga Soomaaliyeed inay xushmayso iyo political independence-ga madax banaanida siyaasiga ah marka qodobkani iyadoo taa ay Kenya cudurdaar ka bixisay oo raaligelin ka bixisay oo laga heshiiyay haddana qodobkani wuxuu daba socdaa adkeynta iyo xoojinta arrintaasi muhiimadda ay dawladda Soomaaliyeed u leedahay dabcan dawladdan Kenya ay u leedahay territorial integrity-ga inay ilaashato maanta State House-ka Kenya waxa ka soo baxay communique-gan waxaana ku qoran dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliyeedba inay si wada jir ah oo dan wadaag ah u xushmeynayaan madax banaanida siyaasadeed ee dalka kale iyo dhowrista xuduudaha marka arrintaasi u malayn maayo inay ku noqosho u baahan ganacsiga Soomaaliya kala dhaxeeyay dartii jaad bay meesha keeni jirtay xiriirka xumaaday waa la joojiyay xiriirkii waa la soo celiyay waa la wanaajiyay jaadkiina waad keeni kartaan baa la yiri iyaguna waxay yiraahdeen kalluunkii waad keensan kartaan Ethiopia meesha ma bataalo suuqa Kenya oo baa meesha ka socdo Ethiopia ciidaba kama hadal hada kalluunkii Soomaaliya maadaama kuwan ay ogolaadeen kii China laga keeni jiray waa la joojinay ma macnihiis su'aasha rabina ku wajahda arinta qaadka maadaama maanta heshiis laga gaaray in dib loo furo qaadkii Kenya loo furjirta Soomaaliya goorma laga yaabaa waqti magacayimay oo dhaqan galay heshiiskaas maanta wallahi gudiyada joint committee gudiyada isku dhafka ee fulinaya heshiisyadan ama wada hadallada mas'uulka ahaba dhiran doona iyagana procedure-kii iyo habraaci la mari lahaa keeni doona waxaad kala ogsoonataan jaadku magaalada Muqdisho baanu ka degi jireen Soomaaliya goboladan Kenya ku dhow uu aad buu u galaa waa la geeyaa jaadka Kenya Soomaaliya wuu galaa
markaan Soomaaliya leenahayna Soomaaliya idil baan ka hadlaynay Muqdisho kaliya kama hadlayno hay magacayga waxa la yiraahdaa markii la wada hadlay waxaan isku gartay qodobo dhowr ah oo ay kamid tahay Kenya inay diyaaradeeda loo ogolaaday in Soomaaliya ka degto qaadkeeda loo ogolaaday Soomaaliya inay ka degto xuduudaha la furo saddexdaas markii loo fiiriyay mid kamid ah waa labada dalba danba ugu jirta laakiin Soomaaliya hadda inta ugu muhiimsan oo noo sheegtay waxa weeyaan in qaadkaas kalluunkeeda loo keenay Kenya soo marka qaadkii ma kalluun baa lagu bedelay qaad kalluun ku bedelasho ma aha waa badeeca kala bedelasho haddii adiga garbasaar iib ku tahay anigana ay uu shaar iib yahay oo aanu kala bedelano macnaheedu ma inaan shaarkii garbasaartii la isku bedelay laakiin waa in ganacsi aan isu weydaarsanay oo wixii adiga ku iib ka hay waxaan iga iib ka aanu isdhaafsan midna waa drug midna waa faa'iido oo cunto weeyaan taasi waa dood kale marka ina jaadku madaragisba waa dood kale halkan ugama doodayno Soomaaliya waxay ku bedelatay cunto la cunayo ay drug ku bedelatay misaas ma macna jaadku madaragisba hadda kamaanu doodin waxaanu ka doodinay Soomaaliya oo xiriirkii ay Kenya la lahayd wanaajinaysay soo celinta ganacsigii dhexmari jiray dartiina kalluunkii Soomaaliyana halkan la keenay halkana wixii laga qaadi jiray oo jaadku u badan yahay la geeyay soo dhaw markii noqoto dhanka socdaalka Soomaaliya mar walba way dhici jirtay 2 toddobaad ay qaadato visa maxaa dheeri ah visa dadka shacabka ay qaataan mar walba markay soo codsadaan 2 toddobaad ma waxa qaadan jiray midka procedure-ka caadiga ah la mariyo mise midka lacagta laaluushka la bixiyo wareefa horani may wala u kaadi eeg waxa jirta dalka Soomaaliya markaad galayso fiisaha Soomaaliga ah lacag lagu iibsado leeyahay halkan markaad imanaysan lacag la bixiyo leeyahay dawladda Kenya lacagta ay ugu tala gashay oo online application fiisaha markaad buuxiso aad laga goyn doona ama aad bixin doontahay waa waxay dawladdu u cayintay fiisaha laakiin waxa ka soo haray ee huhaada iyo hawl fududeynta ay Soomaalidu u bixin jirtay baa meesha ka bixi doona maadaama fiisaha la aqbalaya diyaaradaha ka soo duula Soomaaliya inta badan waxay transit ku noqdaan wajaar oo lagu soo baaraa waqtina ku qaataan hadda kadib ugu jirta heshiiska in si toos ah Nairobi iyo Kenyatta ay u soo xaq dhigan doonaan dadka haddaad akhrisay air service agreement-igi la saxiixay wala la dhigayso air service agreement-igi la saxiixay iyo isagoo revised oo dib loogu noqday oo mar kale la saxiixi doono yaa ay ku qoran tahay arintaasi oo markii hore la saxiixay ay ku jirtay maadaama diyaaradda Kenya Airways halka markii ka kacday ay toos Muqdisho ugu degi doonto diyaaradaha halka ka yimaadaan halkan toos bay ugu soo degi doonaan wadmaadsan xuduudaha la furayo hadaan u xuduudda Soomaaliya inay aad ay u dheertahay dhanka markaad fiiriso magaalo xeebeedyo waxaa jira gacanta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka taliyaba ka maqan oo ay maamulaan qolooyin kale ayagu ma qayb bay ka tahay Soomaaliya in halkaas ay wax rabo ka soo galaan Kenya oo xuduudaasi ma la furayo maxaa la furaa lama joogaa tiriye dowladda ka soo baxda like ka soo baxda dhulkan oo ku daayay markii la soo maro dhulkan aad garanayda anu Kenya soo matid adigu Kenya soo matid hay dooma ka soo baxo halkaas ka soo baxo Mombasa iyo Malindi iyo Costiga hadaba xuduuduhu markay xirnaayeen halka ma la mari jiray mise wax xirnayd lama mari jiray sidoo hadii maadaama ay xirnayd xuduudaha halka dawladdu joogto ama dhankan ay dawladdu ka joogto way isku furmayaan wixii culays amni oo culays amni ah oo dhan walba waan ognahay argagixisadu dalkan dhibaatada ay ku hayso Soomaaliyana lagaga sheekayn maayo oo culays badan bay ku haysaa wixii culays ama dhibaato amni la xiriirahay waxay yeelanayaan consideration gaar aad baad ma taantay wadika intaanad ما يدل لو أني باتين اسمه هذين هاي يسيدا فلو أبغى نكيل هوا يودين كره ما تصنته محمد عاد عيد هي حوال دولة الصومالية وكسولو وقبتها مركي ديب لو xiriirkii xumaaday ee Kenya oo waliba heshiisyo dhowr inta laga galay Kenya lafteeda ay burisay heshiisyadaas
sidee kalsoonida heshiisyada Kenya burisay waa kuwee heshiisyadii oo dowladda Soomaaliya la gashay xukuumadda ma fulin si loogu talagalay ma fulin waxyaabihii xiriirka xumeeyay ka mid ahayd marka dowladda imaan doonto kalsoonida la eega lagu qabo in heshiiska maanta ay gasheen uu sidiisa sii ahaan doono horta dee moogtahay waxaa la yidhi fadhiyana fartiin qabay foofiyana tii qabay marka aad qof agreement la gasho wixii adiga ka fulay iyo wixii aad oofin kartaan adigu waad ogtahay dhinaca kale aad heshiiska la gashay wuxuu oofin karaa isagay marka dowladda Kenya waa dowlad Soomaaliya daris la ah muhiimad u leh xiriirka arrimaha dibadda marka laga eego oo aad kulli qiyaasi karto muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay arrimaha dibadda heshiisyada la galana moogtahay ilaahay iyo uunkiisaba wax wanaagsan baa laga fishaa marka waxaanu filanaynaa inay sidii loogu talagalay u fuli doonaan سيدا وياي سيدا ها وشي كلو ديري انا قاعد سؤال شيدان حتى وصل على الحويان Soomaaliya iyo Kenya bad bay isku haysteen maxkamadda bad kiiska la geeyay Soomaaliya loo xukmiyay wili waxa jooga badii Soomaaliya loo xukmiyay Kenya marka ma ka wada hadashay sidii Kenya arinta Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa ee badda ku saabsan labada wadan way isla fahmi waayeen waxay isla tageen maxkamad caalami ah maxkamadda caalamiga ahayd baa xukuntay way soo kala baxeen waxaan ugu noqonaa garan maayo way dhamaatay arintaas aad baad u mahadsantahay yaa kala su'aal qaba هيا كالسن عبد السمد ما دام كذا شيء أنت أمانك سيدا أبناء إذا ما كنت سمكية أنا بسجود جو سوماليا وحيد في بيستان كيف من الجولة سوماليا سيدا جدول يبرد حاول أنت سكورة مرة مصورة بطلة دمي أرنتها ما كينيانكم waxay u geystaan inay Kenya ka yimaadaan Soomaaliya mise dhibaato ciidan ka guud ahaan ka timaado weeyaan dhibaato guud ciidan Mareykanku ay geystaan way waxay duqeeyeen Soomaaliya oo beeraley ah ama xoolo jirta dhageyso mar walba dawladda Soomaaliyeed muhiim buu u yahay dhiigga dadka Soomaaliyeed cid alla cidii ay noqotana cid ay doontaan noqotay in maalayaan lagu daadiyo marnaba ma aqbalayno marka cid aanu heshiis kula noqonayna inay dadkayga waxay doonaan ku sameeyaan ma jirto dawladda ciidanka ka socday halka joogahay waa ciidan mandate UN iyo mid African Union ba haysta wixii ay geystaana mandate-ka waxa uu jideeyay iyo intuu baneeyay baa lagu xisaabtamaya soo dhow intisaar VOA sama ma sha Allah Soomaalida halkan joogto waxay qayb ka yihiin heshiiska Soomaaliya maanta lala galay Kenya la gashay wadad ku nool waxa jira dad badan oo ganacsata iyo sidoo kale dad badan oo qaxooti wadankan ku ah dawladda ma kala hadashay dadka Soomaalida ee halkan joogo ee ganacsiga ku haystay iyo qaxootiga in la xaq dhawro isku socodka dadka iyo maadaama dadka Soomaaliyeed ee halkan joogay qaxootiga markaynu u soo laabanaynaay dadka Soomaaliyeed ee halkan joogay waxay u badan yihiin ganacsato isku socodka dadka iyo hagaajinta iskaashiga ganacsi iyo midka dhaqaale dadka xushmayntooda iyo fududeynta socodkooda iyo sahlidda inay ganacsadaan qayb ay ka tahay marka arintaasi way ka mid tahay waxyaalaha communication oo address gareynay